Hey, salaam nabadii naxariis korkiinaato qofkeedan la hadlayo waa Sadiq Wadani oo maantadan idinku talagalay inuu idinkaga faa'iideeyo waxa loo yaqaano titleka aan ku magac darnay xagee joogtaa oo macnaheedu uu yahay qofkan dropshipping sameynaya waddanka uu joogo. Xaggana waxaa noogu qoran ka samee dropshipping USA. Okay, meel walba dunida ka joog. Ka samee dropshipping USA adoo meel walba dunida ka jooga. Sidaa la'alligeed marka waxay noqonaysaa inaan gudaha u galno. يعني dadkan waxaan rabnaa dadka Soomaalida inaan usoo jeedino qorshahan asiga ah softwarekan cusub oo aad iyo aad important u ah oo qof walba ka faa'iideysan karo. Waxaan rabnaa inaan idinka tusino dadka Mareykanka ama ka shaqaysta oo dropshipping ka sameeya in ay intooda badan aysan Mareykanka ahayn inuu qorshahan asiga u furan yahay qof walba oo dunida dacaladiisa jooga. Okay, waagaag sidaan marka hore u galno waa inaan ka bilaawno Amazon. Qorshahan ka hadlayna maanta waa Amazon to xagga waxa ku qoran Amazon to eBay annagoo isticmaalayna softwarekan xagga ku qoran Zig Analytic. Haddii aad u baahdo softwarekan iyada fadlan linkiga hoose ka saangare si aad u hesho 15% off. Waagaag gudahan u galaynaa. Let's go. Waagaag xaggan waxaa ku aragtaan Amazon. Okay, Amazon marka aad soo gasho always waxa aad raadisaa si aad ama best seller ama alaabahan aan raadinayna waxa aan samayn doonaa xagga ayaan track ka samayn doonaa annaga oo ku tegi doona meesha loo yaqaano eBay. Markaan eBay tagnana waxaan raadin doonaa qofka alaabahan iibinaya waddanka uu joogo. Okay, waagaa horaan u socono. Marka ugu horreysa annaga strategigeena maanta aan isticmaalayno waxay tahay alaabta aan rabno inaan dropshipping ku samayno waa inay ka yaraataa waxa loo yaqaano $10 always rulkaas aan ii sheeg aan tix raacayna. waxaan ugu talagalnay dadka beginnerka ama bilawga ah haddii aad bilaw ahayn oo eBay muddo ku jirtay ama dropshipping ka muddo sameynaysay waxa ku habboon inaad lacag badan raadsato. Laakiin annaga for safe side qofkan ardayda aan tababarno aan training siino for safe side si ay dhibaatooyinka iyo waxyaabahan dadka tuugada aysan uga dhicin waxa aan sameynaa wax ka yar $10 waxaan iibinaana waa wax ka yar $20. Si taa u suurta gasho waxaan raadinaynaa dariiqan aan lacagahaas ku samayn lahayn. Waagaag aniga always ama favor waxa loo yaqaano new release laakiin maanta waxaan raadinaynaa best seller Amazon waxa shayga ugu fiican oo la iibiyo. Si aad u ogaato trending product always waa inaad labadan category midkood raacataa haddii aadan ahayn qof expert ah. Waxaan ku dhufanaynaa best seller. Markaan best seller ku dhufano waxaa noo soo baxay pages fara badan. Maanta pagekeenu wuxuu u saaran yahay Pure and Personal. Taas waxa maanta aan daba socono. Pure and Personal ku dhufanaynaa. Markaan Pure and Personal ku dhufano waxaa noo soo baxaya waxyaabo fara badan weli xaggan maba eegaayo ilaa hadda xaggadan yani waqti uma hayo xaggan weli fiirinaynaa waa sii categorigan sii kala yaraynaynaa si aan u dhex galno deeply gudahan ugu galno. Okay, waagaag waxaan sii galaynaa meesha loo yaqaano hair makeup personal care skin care. taas meesha ah dadkay u badan yihiin waddankan skin care. Markaa kusii dhafatid skin care waxaan kasii dooran doonaa face wejiga wax la marsado. Okay, our body laakiin haddaan rabto waa ka tegi karnaa wide open waa ka dhigi karnaa annagoo raadinayna waxaan rabno laakiin waxaan ka jeclaa aniga faceka ama lip care ama face care waxyaabaha la halmaala. So aan dhinacaas uga tagno wide annagoo wide ah. Waagaag xagga waxyaabo fara badan aan ku aragnaa laakiin pricekii aan raadinaynay kan ayaa soo qabtay maadaama uu brand yahay. Annaga always waxaan iibinayna waa brand. Amazonna way iibisaa waxay Amazon iibinayso is very good $9.77 pricekeedu wuu sugan yahay. Kana 13 kana 11 17 priceydii aan raadinayna way ka wada badan yihiin 16 intaan kan ka ahayn oo usoo noqonaynaa gudahan usii degayna waxaan raadinaynaa kan hadda 977 le waxaa la iibsaa bishii 5118. So number 1 targetkeena waa kaa. waxaan waa live annaga waxaan hore usoo duubna ma aha live aan ku sameynaynaa. waxaan aragnaa alaab kale oo caruurta loogu talagalay petal lotion vanilla iyadana waxaa la iibinaya $8.87. company weyn waaye kan oo kale iska ilaali waa company yar laga yaaba asiga inuu ka iibinayo meesha loo yaqaano eBay. sidaa la'alligeed waxaan raadinaynaa priceka. waagaag pricekeena waa dooranay kanaan ku bilaabaynaa aan eegaynaa meesha uu nala tago. markaan bartaa ku dhufato waxay noqonaysaa inaad aan titlekiisa qaadano. companygan waxaa la dhahaa Bono Oxalin dadka intooda badan way ka tagayaan laakiin waa acne
acne fumin blah blah 5.5 kambaniga magaciisaan ka tegaynaa because I know dadka dropshipping sameynaya kambaniga magaciisa way ka tegayaan. Alright, waxaan tegaynaa meeshii loo yaqaano eBay. markaan eBay tagno, eBay ayaan ku dhufanaynaa titlekii xagga past, right click past aan leenahay, waxaan leenahay raadi titleka asiga ah. Okay, titleka asiga ah markaan aragno waxaan muhiimadda ah inaan helno dad badan oo iibinaya. waagaag waxaan weli ku jirnaa alaabtii aan raadidkeeda ku jirnaa. waxaan aragnaa dad badan inay iibinaya. This guy 319 buu iibiyey Superstore K, calaamadiisa xag ka qaadanaynaa Superstore K maadaama la leeyahay, which is markaan gudaha u galno haddana waa eegaynaa inuu magaca wato ama magac kale inuu wato. waa qaadanay ninkan maadaama intaasuu iibiyey, waxaan tegaynaa meeshii loo yaqaano Zig Analytic. wuxuu iibiyey 5064 nin. adiga wuxuu u eegyaa ninka ligeed inaan heli karnaa rajaynayna. waagaa qoran waxaan niri meeshaan magaca soo gelinay, waxaan ku qornay Super K, waxaan niri search, ninkan noo soo saara asiga searching other sellers. Okay, so this guy waxa uu joogaa United States of America. so ninkan waxaan arkaynaa alaabuhu gado, you know, and he's a big supplier. So for that reason, ninkan waan ka tegaynaa. We don't want to inaan sii raadino ninkan. waa inaad garataa mararka qaarkood qofka aad wax ka qaadi kartid qofka kale. Okay, waagaag maadaama ninkaasaan ka tegnay, waxaan isku dayaynaa ninka ku xiga oo iibiyey 312 electronic worldwide USA, electronic worldwide UAA ninka dhahaya inaan asigana aan raadino. waa ku dhufanaynaa gudahaan u galayna maadaama uu yahay nin dropshipping ah. waa aragnaa waxaa ku qoran 2 pieces inuu iibiyey, which is good. 1386 uu ku iibiyey, 999 uu kusoo qaadaa belief inuu raadinayo $2. triga meeshan ka jiro xagga waxaa ku qoray electronic wonderland USA. xaggan haddaa eegto waxaa ugu qoran electronic wonderland UAA. Okay, so trick waa meesha sadhow markaa gudaha u gashid ma arki karta ninkan uu ku qaldaya. so waxaan tegaynaa bartii aan hore u naqaanay, waxaan ku dhufanaynaa, waxaan leenahay search. waxaa noo soo bixi doona waddanka uu joogo. you see United Australia, waa taas waa UAA ugu qor. ninkan Australia alaabtan uu lacagahan ka sameeya, waxa uu sameeya bishii 6,600 whatever is 85. xagga waxa uu ku leeyahay waxaan joogaa meesha loo yaqaano United States, Tuluna, Oregon, United States. Okay, so waa inaad garataa macnaha ka dambeeya qofkan xaggan alaabtan ku iibinaya oo leh waxaan joogaa United States. haddii aan gudaha u galno sida xagga ka aragno, waa qofkan waa qof electronic world, qofkan ay ugu qoran tahay electronic wonderland USA, you know, and sababtaan kusoo helno waxay tahay xagga waxaa ugu qoran electronic wonderland USA. meelaha layska qaldaayo ee buu raaciyey, USA buu xaggan ku raaciyey, laakiin eBay datadiisa waxa ay tusinaysaa xaggan markaa ka eegto, xagga waxaa ku qoran electronic wonderland Australia. Okay, dadkintooda badan ma fahmi karaan. ninkan laba xab buu iibiyey, laakiin sinisa ninkan gacanta ku hayn waxaan isku dayaynaa inaan gudaha usii galno waxa kale uu iibiyo. maadaama uu 6,885 iibinayo, uu listiga active list waxaa ugu jira 11,835. ninkan very much is big supplier as well. alaab badan. successful wuxuu iibiyaa bishii 241 xabo. annaga hadda waxaa lagu jiraa January bishii 2024. waxaan raadinaa ninkan 2024 waxa uu iibiyey. waxyaabahan kale waxa naga gala ma 2024 raadinayna. 2023 we don't need it. 2023 waa baxnin. 2024 raadinayna waxa uu iibiyey. hadduusan 2024 wax iibinin, ninkan waa isaga soconaynaa. raali noqda, faster aan u soconaya. 2024 haddadan waxaan arkaynaa weli 2023, laakiin pageka shanaad markaan tagnay oo ninkan alaabtiisa ku saabsan, waxaa noo soo baxay koodii bishii inuu iibiyey alaab ayuu iibiyey. kooda bisha 1 2 3 4 5 6 lix xaba ayuu iibiyey kooda bisha January. Okay, so
kowdii bisheeda maanta waa 11 casho ka hor uu iibiyey intaas laakiin waxaan isku daynaynaa hore usii soconno haddii aan page kale ninkan ka heli karno. Alright, so waxbaa isku gadaaday, let's go. Isku dayna inaan page kale ka heli karno. So very much ninkan waxaa la leeyahay saaxiib waqtiga ugu dambeeyay uu wax iibsho ninkan waxay ahayd December ilaa January maadaama holidayga la soo galay. muhiimadda ugu wanaagsan ninkan ku jeclaa waxay tahay priceka uu target gareynayo is $7, $8, $6, $8. waxyaabahan dhibaato Mareykanka complain xataa haddii alaabta ku xumaato xataa dhibaato kuma geenayo. This is the price you need to target. Priceka ninkan uu target gareynayo, okay? haddaa eegto ninkan Amazon kaliya kama soo qaado, it could be inuu AliExpress xataa uu ka keeno ama over the China. si aan taas u ogaano alaabtan aan raadinaynaa. So Walmart uu ka keenaa very much, it's just brand, alaab brand ayuu xagga ku iibinaya. So for kan oo kale waxaan raadinaynaa meesha uu ka keeno, okay? waa ku dhufanaynaa gudahaan u galaynaa. We want to know meesha uu ka keeno baalkaas uu iibinayo $7.99. waa aragnaa xaggan waxa uu ka iibshay hal xabo ayuu family size alaabtan ka iibiyey. Life waa family size waa baal jira oo Mareykanka laga cuno, waa cereal loo yaqaana. So sidaa laaligeed ninkan maadaama uu hal xabo ka iibshay alaabtan waxayna tusinaysaa ninkan inuu xooga saarayo alaabaha brandka ah. welina waxa uu leeyahay waxaan joogaa Oregon, United States, laakiin ninkan ma joogo Toleton, Oregon, United States. haddii aad u baahataan inaad sida ninkan oo kale noqotaan oo aad USA address aad heshid, sida addresska USA loo helayo iyo waxyaabaha la halmaala iyo sida dadkan loo baaro, yani meesha ay joogaan iyo wadamada ay kala joogaan sida loo baaro, sida ninkan oo kale Australia. fadlan waxaa jira koorsooyin aan bixino oo aan ku sharaxayno sida Mareykanka lacag looga sameeyo adoo dropshipping ku sameynayo, okay? So ninkan haddaan u baahdo aniga hadda waa raadin karaa alaabtan hataa meeshuu ka soo iibiyey. I know inuu Walmart ka soo iibiyey. waxaan dhihi karaa let's highlighted alaabtan. markaan highlight gareeyo right click haddaan loo alaabtan waxay joogtaa $4 ama $3 iyadoo free shipping ah, okay? I know exactly Walmartiga inuu kasoo qaado ninkan alaabta maadaama anaga aan Amazon ku iibino. alaabtaas Amazon $7 kuma iibinaysid. waagaag xagga waxaa ku qoran $4.78 waxa uga soo qaada ninkan ana Walmart waxa uga soo qaaday $4. you see, the ben ma sheegayna brother, we know exactly gameka siduu u shaqeeyo, okay? haddaad u baahan tahay nafsad ahaantaada Walmart ka soo qaadaysaad eBay ku iibinaysaa. koorsooyinkaas iyagoo taxana ah waxaan awoodnaa inaan yani ilaha awood leh waxaan awoodnaa inaan kugu saacidno. haddaad u baahan tahay inaad koorsooyinkaas qaadato fadlan nala soo xiriir. dhowaan ayaan soo saari doonaa waxa loo yaqaano an Amazon to eBay ama an eBay to Walmart, however you want. sida xaggaa ka aragtid $3.98 waay xaggan, you know, ninkan xagga wuxuu ku iibinayaa $7.95, okay? $7.95 waxaa kaga iibinaya, laakiin let's see, waxaan xisaabaynaa zig, waxaan tegaynaa free eBay calculator. free eBay calculator aan tegayna waxaa idin tusinaya ninkan lacagta uu ka faa'iido bartan iyada ah. Alright, meeshan la yiraahdo $3.98 plus tax waxay noqon doontaa waxa loo yaqaano 0.6, waxay noqonaysaa $4.08 or $4.06 meelahaas ayaa ninkan laga qaadaya macal taxigii. ninkan itemka wuxuu ku soo iibiyey $4.08, aan dhahno $4.08. okay, $4.08 no problem. xaggana waxa uu ku iibshay $7.95. wax weyn ma raadinaysid. always make sure wax yar aan dadka dhibaynin Mareykanka jooga ka shaqaysa adoo $3 $4 ka sameynaya. Alright, so let's see ninkan $7.98 $7.95 man, something like that. kana $4.8 waa hagaag. $4.8 markaan ku dhufano aan niri xaggan markaan gelino priceka waxaa xaggan nooga soo baxay $2.54 ninkan inuu ka faa'iidayo alaabtan. wuxuu $2.54 haddaa ka faa'iido, you know, adoo xaggan ka soo qaaday xaggan geliyey alaabtan waxaa ka iibisay 1, 2, 10, 5 whatever. ninkan waxyaabo badan uu iibiyaa oo badan. maalintan ka soo qaad maalinta hadda ugu dambeysay kanuu $2 ka helay,
kana laga yaabo inuu $3 ka helay, kana in laga yaabo inuu $2 ka helay. So this guy maalintan waxa uu iibshay 1, 2, 3, 4, 5, 6. I mean, $3 waa almost $20 profit, right? $20 times maxaa la dhahaa 30 days waa 600 a month oo profit ninkan oo faa'iido qaato ugu yaraan. Haddaana aan kuwa kale sii dhexgelin. Waagaag ninkan waa isaga tegaynaa, waxaan raadin doonaa dad kale. Waagaag weli waxaan gudaha uga jirnaa ana free coursiga aan YouTube iyo TikTok ugu talagalnay. oo macnaheed oo title-keeda xagee joogtaa, qofka xaguu joogaa, qofkan Mareykanka wax ku lacagaha ka samaynayo xaguu joogaa. Ka samee dropshipping USA. Adoo adduunka dacaladeeda jooga ayaa ka samaynaysaa lacag meesha loo yaqaano Mareykanka. Laakiin maanta targetkeenu wuxuu yahay war qofkan lacagta ka samaynaya Mareykanka xaguu joogaa. Let's go. Hore u socono. Waagaag waxaan ku noqonaynaa eBay this time. Waxaan eegaynaa title iyo meelahan wax yaala. Waxaan isku dayaynaa inaan wax ka raadino. ICM, okay, $28. Kan waa 28, this is 43. Alabta anaga Amazon ku iibin. Okay, let's go this one. Waxaa ku qoran 43. Ninkan wuxuu iibiyey 6. Ninkan waxaa la dhahaa inta badan waxaan aragnaa mataqaan dadka USA la baxa waa dadka aan u dhalan Mareykanka, aan Mareykanka joogana ka ganacsan. Okay, USA period ninkan yiri. USA period kumaata. Horta waxaan rabnaa marka ugu horeysa alaabtan meequu ku soo qaaday siduu xaggan ku keenay inaan ogaano. Annagoo taas ka daalaraacin waxaan sameynaynaa magaciisa ayaan ku dhufanaynaa. Waxaan leenahay copy, waxaan tegaynaa meeshii loo yaqaanay adeerkay, waa taqaanaan dadkii la dhihi jiray Xagee Analytic softwarekan haddaa u baahataan xagga hoose ayaa iyagana ka heli kartaan, annaga oo 15% discount lagugu siin doono haddii aad dhankeena ka dalbato. Wahagaag wuxuu yidhi no product matched USA or no product category competitor search. Wahagaag kanaa ku dhufanaysaa, waxaa leedahay let's go search. Meeshuu ninkan joogaan rabnaa inaan ku dhufano. Ka waraya nin baa Dubai jooga, United Arab Emirates oo ninkan jooga. Ninkan lacag badan ma sameeyo, laakiin bishii waxaa lagu leeyahay 1550 buu sameeyaa. Alaabta ugu jirta arag 35 xabaa ugu jirta, 35 alaabaa ugu jirta. Waxa uu iibiyaa successful listing, waxa uu list gareeyay 14 ayuu ii sheegaa uu ku guuleystay inuu gado. Okay, feedbackiisa 94 high waa dad complain gareeya ma laha. Average alaaba uu gado 45.93 ugu badan ninkan. Okay, laakiin the good thing ninkan wuxuu xooga saaray dumarka kaliya, waxyaabaha la isku cadeeyo, waxyaabaha la marsado creamka. Haddaa u baahan tahay inaad professional noqoto sida ninkan oo kale Dubai jooga. Okay, haddaa u baahan tahay inaad professional noqoto waa in aad marka ugu horeysaba category ay yeelataa, sida cream oo kale, sida dharka oo kale, sida raashinka oo kale. Laakiin haddii aad mar raashin iibiso, marna aad iibiso dhar, marna aad iibiso beauty product, waxyaabahan la isku qurqurxiyo, dadka confuse ay ku noqonayaan. Waxay isleeyihin ninkan waxa uu iibinaya nin la hubo ma aha, waa nin meelaha taataabanaya lama yaqaano. Wahagaag waxaan aragnaa mar labaad nin kale oo United Arab Emirates jooga oo alaabahan iyaga iibinaya. Wahagaag ninkan United Arab Emirates jooga waxaan ka soo raacnay xagga kan, laakiin hadduu United Arab Emirates joogo xaguuna leeyahay annaga waa joognaa. Ninkan wuxuu leeyahay waxaan joogaa United States, Addison, New Jersey. Okay, markaan idin leenahay haddaad u baahan tahay inaad koorsooyinkan ayaga aad ka faa'iidaysataan, fadlan nala soo xiriira. Waxaan idiin ballan qaadaynaa sida dadkan ay u shaqaystaan, inaan markaad koorsooyinkeena aad iibsato sida dadkan ay u shaqaystaan inaad adna u shaqaysan doonto behind of the screen, adoo computerka gadaashiisa jooga, cid ku ogeynaysa jirin. Wahagaag AliExpressna waa ka soo baxaynaa. Xaggan waxaa ku barateen dadkan ayaga ah in ay ii sheeg ay joogaan wadamadan hadda aan kor ku soo sheegnay, Dubai, Australia. Haddaa meelahan sii gasho, this is Xagee Analytic. Haddaa dhinacan midig aad eegto USA mooyaane dadkan fiiri Israel, I don't know wadankaas wuxuu yahay. Wadankan calaamada guduudan best price ay ku qoran tahay, ninkan wadanka uu ka yimid. Waa badan yihiin dadka. Egypt markasa hataa another one Egypt hataa way ku jiraan. Egypt trader kaas fiiri hadda Egypt trader mid ay ugu qoran tahay.
So Egypt is Africa, Jordan aa ku arkaysaa, waxaa ku arkaysaa Dubai hadda waa aragnay. You see this guy is from Egypt, laakiin this guy priceka uu xooga saarayo, laakiin priceka ninkan uu meelaha ku iibinayo is very high. Waa pricekii annaga aan qorshaha noogu jira ma aha, waa inaan ka raadinaa price kale. Ninkan kale aan eegana Egyptasna waxa uu meelahan ku iibinayo. So very much qorshaha ugu muhiimsan ee Xagee analytic qofka meeshuu ka soo jeedo uu ku tusinaya, iyo product research adoo ku samayn kara, iyo weliba waxa ku samaynaysaa waxa loo yaqaano title building. iyo maalin walba marka aad soo gasho waxa aad ka helaysaa productiga markaa socda. iyagana haddaad koorsooyinkeena qaadato aad gudaha usoo gasho, waxaan kaa saaciidi doonaa in aad waxyaabahan ayaga ah oo ganacsiga inaad ka faa'iidaysto. nin kale ayaa noo soo baxa Dominic Republic jooga, 6332 buu sameeyaa, activekiisa 911, bishii waxa uu iibiyaa 103 shay. markuu intaa iibinaya lacagtan intan ka helaa, alaabahan uu xagga ku iibshaa. So the Xagee analytic is very very unique waxa way company oo dadka aad iyo aad ay uga faa'iidaystaan inta badan. haddii aad jeceshihiin inaad koorsooyinkan iyaga aad qaadataan, fadlan don't hesitate, ha xishoonin. Another guy working in Egypt, 35,000 man. in Egypt joogo 35,000 sameynayo, listigiisa 4,491, successful waxa bilowba la iibiyay 187. okay, ninkan is the top way, sababtoo alaabaha uu iibinayo 100 risky taker waa. haddaa risky taker tahay you can sell it. tusaale hadda fiiri alaabtan golfiga, dadka taajiriintu target garaynaya. alaabtan golfiga waxa ay taalaa lagu leeyahay bingo, waxa ay taalaa meesha loo yaqaano Amazon ama CJ Dropshipping, you never know. So ninkan is targeting highest lacaga 200 300. ninkan anaga isku level manihi, dadka kulama taliyo, risk taker waaye. sidaa risk taker u noqotan waa inaad markaa risk taker noqotan lacagaa noocaas samaynaysaa. okay, laakiin dadka uu target gareynayo ma aha dad daciif ah oo aan lacag haysan. dadka wuxuu target gareynaya lacagaha haysta. okay, dadka aan dadka dhibaynin. waagaag waxaan isku dayayaa isigan asiga ah oo uga magac darnay xagee joogtaa KASAMEE Dropshipping USA, oo aan ku ogaanaynay dadka gudaha lacagaha ka sameeya Mareykanka inay intooda badan 60% ay waddanka joogeen. waagaag waa saadiq wadani asxaabtiisa oo idin le maalinta idin wacnaato aqligan hadin intaan ka bixin ka hor, haddii aad u baahataan inaad noqotaan sida macallimiintii hadda aan idin tusaynay oo lacagaha Mareykanka ka sameynayay, fadlan nala soo xiriira linkiga hoose. haddii aad u baahan tahay softwaredan xagga aan ku sheegan inaad iibsataan Xagee analytic, fadlan xagga hoose ana iishe ka iibso, xagga hoose ku dhufo linkiga si aad u iibsato. waxaad heli doontaa 15% oo discount ah iyo 1 bilo free ah. waa saadiq wadani iyo asxaabtiisa idin le hey maalinta idin wacnaato aqligane ha idin shaqeeyo.